mudaharaadadii sida nabadda ah aan anaga ku cabiraynay oo asaga hortaagnaa inay sii socod doonaan oo 4 Juun hadduu Ilaahay yiraahdo ciidda kadib mudaharaadkii la qaban doono isku soo bixii nabadeed waa la socotiinkii aan 10 May qabanay jidii qoray oo ka dhigay raa'id wuxuu daaran yahay koow horta inaan mar kale ku celino xasan sheekh maxamuud waa madaxweyne hore shan habeen oo fila Soomaaliya ku bariyana ijaarka soo iska bixin oo degan yahay sharci la'aan ku degan yahay asoo markii hore dadkii Soomaaliyeed barakiciyay ee danyarta ahaa iyo haddana gurigii ay lahaayeen oo fila Soomaaliya xoog uga degan yahay iyo sharci la'aan oo sina ina cad oo dadka Soomaaliyeed ogaadaan fila Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed iska leh waxa lagu deganaa karaa ijaarkeeda maxaa waaye heshiiskii sharciga dastuurka waaye marka ninkaas shan habeen wuxuu nooga dhaxay guri uu sharci darro ku degan yahay kuwii oo barakiciyay iyo guriyo xoog ugu qabsaday qayb ka tahay labo waxaan rabaa inaan cadeyno mudaharaadadii sida nabadda ah aan anaga ku cabiraynay oo asaga hortaagnaa inay sii socod doonaan oo 4 Juun hadduu Ilaahay yiraahdo ciidda kadib mudaharaadkii la qaban doono isku soo bixii nabadeed waa la socotiinkii aan 10 May qabanay jidii qoray oo ka dhigay stadium koonis la isku tagay leeyina wuu diiday saas waxa ka cad inuu soo mudaharaad nabadeed xashiq ogolayn intii ka dambeysane wuxuu ka hadashay dad kala duwan oo leeyahay mudaharaadkii diida dagaal la soo abaabulaa mudaharaadka xamar uma rabno mudaharaad ma rabno mudaharaad soo toog midka oo ka qayb gali jiray Soomaa oo anagii asagii Sheekh Shariif iyo Khayri rag meesha taagay Cabdikariin oo dawaa ka wada qayb gali jirnay Soomaa mudaharaadka maxaa ka bedelay